khasaare lixaad leh oo malaayiin dollar gaaraya ayaa ka dhashay dab saacado badan socday oo xalay baabi'iyay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee Waaheen. Warbixintan oo idinkaga imaaneysa kanaalka arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Gal Ganacsi ayaa ku soo koobayna xogaha dabkaas ka kacay suuqa Hargeysa. Abaar 8 fiidnimo ee xalay ayuu kacay dab, hase yeeshee kooxaha dabdamiska ee la tacaalaya xakameynta dabka ayaa howshoodii waxaa carqaladeeyay suuqa oo aan lahayn wadooyin waafi ah oo loo maro. Suuqa oo ku fadhiya masaafo gaaraysa 5 kiiloomitir ayaa tan iyo waqtigan waxaa soconaya dadaalada lagu daminayo dabkaasi ka kacay, iyadoo maayirka magaalada Hargeysa uu isagoo qeyraysan tilmaamay in hantidii magaaladaasi ay baaba'day. Ilaa hadda lama sheegin dad ku dhintay, balse hanti ayaa ku gubatay dabka. Baashe Bushaaro oo ka mid ah ganacsatada ay hantidooda ku baaba'day dabka ayaa BBC-da u sheegay in 10 meherdood kaga gubteen goobta, kagana burburtay hanti ku dhow $500,000. waxa weeyaan Baashe Bushaaro waxaan deganahay suuqa Waaheen ee bacadlaha Hargeysa. 20 sanadood deganaa 10 meherdood bay iga gubtay. anigu meheradahaygu waxay ahaayeen qurxinta guryaha, wixii oo dhan way gubteen. imika waxaan joogaa dooxa bartankiisa, dareenkayguna waa fiican yahay. waxa ilaahay qadaray baa dhacay, ummaduna way ku caawiyeen suuqa. xaaladda ummaddu waa mucsir, hanti wixii suuqa yaalay waxba kama bixin. taas waa taa, laakiin waxa ilaahay qadaray weeyaan. alxamdulillaah rabbil caalamiin, dareenkaygu weeyaan. waxa igu suurta gashay halkan dooxa qarkiisa store yar oo aan ku lahaa weeyaan. kii baan isaga badbaadiyay oo dooxa geeya, saasaan ku soo guray. kolkaa intaas ay nabad gashay, ilaahay intaasaan ka baryaa inuu barakeeyo. lacagteeda qiyaasteedii ilaa 400 way gaaraysaa, laakiin 280 baan hortay imika xisaab aan ka garanayay oo meel aan ku qoray oo xaqiiqo ahayd. Dabka ayaa haatan intiisa badan la damiyay, inkastoo uu khasaare xooggan dhaliyay. Mas'uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in sababta sida degdeg ah loo xakameyn waayay dabka ay ahayd in la waayay waddo loo maro goobta, taasina ay horseeday in holaca uu qabsado suuqa islamarkaana ay xaaladda faraha ka baxdo. Cabdikariin Axmed Mooge, maayarka magaalada Hargeysa oo ka mid ah mas'uuliyiinta goobta u gaaray gurmadka, ayaa warbaahinta u sheegay waxa dhacay in ahaayeen maqaadir Rabbi, dalbadayna gurmad in lala gaaro suuqa Hargeysa. halkan waa arkaysan ta dhacday waa maqaadir Ilaahay weeye. alxamdulillaah inaan dad inaga dhiman, laakiin ummadani waxay haysato dhan baa ku baaba'ay. insha Allah waan ka soo kaban doonaa. waar ninkii cagaf haysta, ninkii iskarogo haysta, dowladaha hoose ee Boorama, Gabiile, Berbere noo soo gurman kara. nin kasta maanta cagaf iyo iskarogo wuxuu keeni karo inuu keeno weeye. shaqadu bari 6 subaxnimo inay bilaabanto weeye. ummadan dhibaatada gaadhay ee weyn in la isaga soo gurmado weeye. dhanka kale, gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland ayaa sheegay in 40% hantidii Hargeysa ee halkaasi ku burburtay loona baahan yahay in garab istaag loo muujiyo dadka ku cirtoobay dabka ka kacay suuqa magaalada Hargeysa. hantidaasi waa malaayiin waxaan ku yiri Hargeysa caawa ganacsiga iyo xoolaha yaala 30% ama 40 uu ka noqon karaya. malaayiin dollar baa ka wada. waa Hargeysa 40% halkaas talaan waa dhaqaalihii ummadda reer Soomaaliland intii ugu badneed meeshii taale weey.